gurigaaga gudihiisa lagugu fadeexayn doona maalin dhaweyd wadaad baa jiray sheekhnimo sheeganayay oo masaajidda mid kamida magaalada Nairobi wax ka akhrin jiray nin sheekhnimo sheeganayo ninkii waxa lagu imtixaanay inuu culimada caayo culimadii hore rag qiimo badan leh oo diintan u soo adeegay inuu caayo ibn Taymiya ibn al-Qayyim Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mar alla markuu istaagaba ama khudbo ama muhaadaro ama kelimo markuu jeedinayo inuu ragga caayo waa ilaahay wuxuu qadaray tabaaraka wa tacaala dadkiisa markii laga kari waayo isaga kugu maqan waa lagu maqan alla wuxuu qadaray ninkii nooca ahaa guri uu joogay oo qaraabo ay ahaayeen oo uu ka cuntayn jiray gabadh yar oo joogtay gabadh yar oo guriga joogtay oo aan qaan gaadhin ayaa isagoo oo farax xumaynahay lagu qabtay waa ninkii sheekh ahaa xaal baa loo dhigtay masaajidda hortiisa lagu garaacay reerkiisii baa xaal loo dhigtay ninkii dhul baa qaban waayey oo cir baa asturi waayey ilaa uu cararay oo waddankiiyo magaaladaba uu ka cararay adiga markaa dadkan ilaahay tabaaraka wa tacaala shaqo ka dhigato oo lagaa kari waayo waxaad ogaataa waa lagugu maqan yahay ilaahay goortuu ku fadeexayn doonana ma foga gurigaaga gudihiisana lagugu soo gali doonaa xataa gurigaaga jawfkiisa lagugu fadeexaynaya ilaahay dadkiisa u daa oo adoomada ilaahay faraha ka qaad warkan aad leedahay waa fool xun yahay ilaahay baa saa u abuuray kan naafada ilaahay baa saa u galay kan dabeecadda xun alla siiyey tabaaraka wa tacaala adiga haddaad wax la dhaantood wax kaga roon tahayna adigu ismaadan siinina alla ku siiyey allihii qaybta ku siiyey intaad ku shukrido dadkan ceebtooda iyo xumaantooda haddaba gelin hana caayin hana dhaleecaynin hana xamanin meel lagu xamanaya haddaad aragtana walaalkaaga muslimka cirdigiisa iyo sharafkiisa waa inaad difaacdo waxa aad u badan markaan majaalista isugu nimaadna khaasatan dumarka majaalista markii la isugu yimaadiyo goobaha iyo guryaha lagu sheekaysanayo mid baa xamanayso xan qolay xamanaysa guri bay xamanaysa intii kale meesha fadhidayna way u qoslayaan oo way u marxabaynayaan والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما dadka mu'miniinta Allah wuxuu ku sheegay ma xaadiraan zuurka iyo beenta iyo dambiga ma xaadiraan hadday laqwiga iyo waxyaalaha aan macnaha lahayn soo maraanna ayagoon ku wasaqoobin oo wanaagsan oo nadiif ay maraan oo dhaafaan hadise laakiin wixii aad u marxabayso oo wixii u camirto oo u shactirayso oo u qosasho xanta midda wada iyo adigu isku dambi baati innakum idan mithluhum iyagoo kala tiimbu Allah tabaaraka wa tacaala kuwan ilaahay aayaadkiisa wax ka sheegaya xumaanta sameynaya la fadhidaan ee aydan ka kacaynin kana celinaynin idinkiya iyaguba isku dambi baati ruuxa dambiga wada ee xanta wada ee dadka wax ka sheegaya hadaanan qabanin oodan qaban kareenin isaga kac haddii kale tan qabo waxa tirada war dadka xanta ka daa na dadka xanta ka daayo dadka waxa ka sheegin adiguba ceeb baad leedahay ceebtaada Allah ku tuso hadaad qaban karta qabo hadaad qaban karin waxa la doonayaa inaad isaga kacda la doonayo